wargelinaa inaanay jirin howlka maxkamadda dhexdiisa wax lagu duubi karo iyo maxkamadda gudaheeda markii xukunka maxkamaddu ku dhawaaqdo ciddii waraysiye bixinaysa inay bannaanka la tagto oo howlka maxkamadda iyo maxkamadda gudaheeda aan la ogolayn haddana maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii laga sugayo. bismillahi raxmaan raxiim. jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magaca dadweynaha soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta laanta tashiga maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 2024 maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 14/2023 kaasoo eedeysanayaal ay ka yihiin 1 maxamed ibraahim axmed ina sahre xuseen cumar dhasha 12 bishii 1990 ku dhashay Kenya ahaana sargaal ka tirsan waaxda ICT ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3 oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba 2 cabdiraxmaan maxamed cali caadle ina xaawo sheekh cusmaan dhashay 4 bishii 3 1984 ku dhashay muqdisho ahaana agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 366 lala akhriyo 71 360 lala akhriyo 71 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed 3 abuukar xasan aadan ina safiya maxamed xasan dhashay 1 bishii koowaad 1990 ahaana sargaal ka tirsan waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed 4 maxamed xuseen nigeeye ina maryan muuse xuseen dhashay 17 bishii 1993 ku dhashay degmada boondheere ee gobolka awdal ku dhashay degmada boorame ee gobolka awdal ahaana sargaal ka tirsan waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed 5 cabdullaahi daahir wehliye ina ubax cabdi cali ku dhashay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan 12 bishii 1988 ahaana fuliye khasnaji ee laanta bangiga dhexe ee garoonka aadan cadde haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo qodobka 17aad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradihiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed 7 cabdalla maxamed axmed ina sahre khaliif xirsi dhashay 3 bishii 1990 cusmaan 6 cusmaan xasan cosoble ina ceeble raaga cawaale dhashay 1 bishii koowaad 1965 ku dhashay beledweyne ahaana agaasimo ku-xigeenkii hore ee agaasimo ku-xigeenkii hore ee guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda haddana maqana ah kuna eedeysan qodobka 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo qodobka 71 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala sii akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed 7 cabdalla maxamed axmed ina sahre khaliif xirsi dhashay 3 bishii 1990 ku dhashay xamar ahaana agaasimihii waaxda ICT ee xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka haddana maqana ah kuna eedeysan qodobka 246 faqradiisa koowaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed
iyo qodobka 282 faqradihiisa koowaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 8 Cabdikaafi Xasan Maxamed ina Raabiye Axmed Xasan dhashay 22 bishii 12aad 1988 ku dhashay Gaalkacyo ahaana agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddana maqana ah kuna eedeysan qodobka 241 faqradihiisa koowaad lala akhriyo qodobka 71aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 9 Jacfar Maxamed Axmed ina Saalaxo Axmed Xayle dhashay 10 bishii 10aad 1972 ku dhashay Jowhar ahaana agaasimihii guud ee hore ee waaxda dakhliyeedda ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad 46aad faqradihiisa koowaad iyo qodobka 50aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud 10 Cabduqaadir Cilmi Cali Cabdul ina Xabiib Cali Xasan dhashay 12 bishii 12aad 1988 ku dhashay Kenya ahaana agaasimihii guud ee hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 241 faqradihiisa koowaad lala akhriyo qodobka 71aad iyo qodobka 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradihiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 11 Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ina Madiina Maxamed Nuur dhashay 12 bishii 10aad 1985 ku dhashay Beledweyne ahaana agaasimihii guud ee hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 241 faqradihiisa koowaad lala akhriyo qodobka 71aad iyo qodobka 255 iyo qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradihiisa koowaad iyo qodobka 50aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 12 Muxudiin Xasan Juru Saabay ina Aamina Axmed Baseeye dhashay 20 bishii 4aad 1968 ku dhashay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ahaana agaasimihii hore ee waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya haddana maqana ah kuna eedeysan qodobada 241 faqradihiisa koowaad lala akhriyo qodobka 71aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala akhriyo qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ka duuleysa qodobka 122 iyo qodobka 123 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay kow eedeysane Maxamed Ibraahim Axmed oo maqana ah ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 246 faqradihiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga sidoo kale waxay ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga waxayna ku xukuntay xarig wadartiisu dhan tahay 4 sano 2 waxay eedeysane Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caadle oo maqana ah ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 241 faqradihiisa koowaad lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 4 sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dawladeed si joogto ah waxayna ku weysay dhammaan faldambiyeedyada kale ee ku xusan qodobada 366 lala akhriyo 71 360 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 3
waxay eedaysane abuukar xasan aadan oo maqana ah ku hesho faldambiyeedka ku xusan qodobka 246 faqradiisa koowaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 3 sano oo xarig ah. 9 waxay eedaysane sidoo kale waxay ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradiisa koowaad iyo labaad ee xeerka qodobkiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna u xukuntay 1 sano oo xariga waxayna ku xukuntay xukun wadartiisu dhan tahay 4 sano oo xariga. 4 waxay eedaysane Maxamed Xuseen Nageeye oo maqane ah waxay eedaysane Maxamed Xuseen Nageeye oo maqane ah ku hesha faldambiyeedka ku xusan qodobka 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxayna ku weysay dhammaan faldambiyada kale ee ku xusan qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. 5 waxay eedaysane Cabdullaahi Daahir Wehliye oo maqane ah ku hesha faldambiyeedka ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo qodobka 71aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dawladeed si joogto ah waxayna ku weyda dhammaan faldambiyada kale ee ku xusan qodobada labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba. 6 waxay eedaysane Cusmaan Xasan Cosoble oo maqane ah ku weyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka bari yeeshay eedahaas. 7 waxay eedaysane Cabdalle Maxamed Axmed oo maqane ah ku weyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobka 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 282 faqradiisa koowaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bari yeeshay eedahaas. 8 waxay eedaysane Cabdikaafi Xasan Maxamed oo maqane ah ku weyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka bari yeeshay eedaha lagu soo eedeeyay. 9 waxay eedaysane Jacfar Maxamed Axmed oo maqane ah ku weyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud waxayna ka bari yeeshay eedahaas. 10 waxay eedaysane Cabduqaadir Cilmi Cali Cabdul oo maqane ah ku weyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo qodobka 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka bari yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyay. 11 waxay eedaysane Maxamed Aadan Jimcaali Koofi oo maqane ah ku weyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 248 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud
iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka 8-labaatanaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka oo lala sii akhriyay qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bariyeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyay 12 waxay eedeysane Muxudiin Xasan Juru Saabay oo maqana ku weyda dhammaan faldambiyeedyada ku xusan qodobada 241 faqradihiisa koowaad lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka 8-labaatanaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyay qodobka 39aad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bariyeeshay eedahaas waxay maxkamaddu faraysaa dhammaan hay'adaha ay ka tirsan yihiin eedeysanayaasha maxkamaddu dambiga ku weyday in xuquuqdooda sharci ay u soo celiyaan xukunkan cid aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku simaninta oo sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha 5 2024 wabillahi tawfiiq